السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعانا ونكسن لما صاحبدا كحيران جنالك وقيبتي اللحاد قصدي ويلكي قوبي ودد قوشا وحينو جوكتي آيات القرآن كوهاد روح إلهي كبقى صبر إلهي ملومي أجر كددك وناقة سمايا ميدا ماشاس أيو إنو مريسي قيبتي شنات ويلكي يرى أيا يري أنيو آد بان وقحوما هاي وان قلدمي حاكيمك أيا كويري مايا سيدا ماهن أديو maad fashilmin laakiin waxa ka dhinaa shay muhiim ah kaasoo ah hal abuurka guusha aasaaska guusha wiilkii maxay tahay hal abuurka guushu ama hal abuurka sareynto xigmad badani waxaad ku dhacday qaladkeed ay ku dhacaan dadka intooda badan waxaad martay wadadii sareynta adiga oo aan garanayn hal abuurka guusha aniga waxaad ii weydiisay wadada guusha waana kuu sheegay adiga oo doonaya inaad noqotid mid sareeya waxaan ku weydiiyay maxaad doonaysaa waxaad tiri waxaan doonayaa inaan shirkad takhasuskeedu yahay elektarooniga asaaso kaasina maahan wadada guusha ee waa wadada loo maro xaqiijinta hadaf dhamaanaya waqti go'an adiguna fulintii waad bilowday wax kastana waad baratay oo ku saabsan elektarooniga luqadii baad baratay waxaad baratay sida dadka loola dhaqmo taas oo macnaheedu yahay inaad xaqiijisay hadafkaagii iyo himiladaadii oo shirkadii baad aasaastay su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay markii shirkadda aad furtay ee haddana aad fashilantay miyaad ahayd mid naftiisa xakameyn kara wiilkii ayaa yidhi maya haddana wuxuu weydiiyey miyaad ahayd mid naftiisa xidhiidh fiican la leh wuxuu ku jawaabay maya haddana wuxuu weydiiyey luqadda aad baratay sidee baad naftaada ugula hadlaysay wuxuu ku jawaabay si aan fiicnayn xigmad badani ayaa yidhi taasi waxay ka dhigan tahay in wixii aad baratay naftaada lidkeeda aad u adeegsatay sida awgeed ruuxa lagu fidneeyo sababta wuxuu ku halaagsamaa sababtii uu adeegsaday lafteeda kadib uu u soo baxaa caalamka dibadda isagoo oo xaasidaya dadka kale oo isbarbardhig wada oo ka shakisan oo wuxuu iloobaa qowlkii ilaahay ee ahaa inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim ilaahay qoom ma dooriyo ilaa ay iyagu isdooriyaan marka inaga ayaa had iyo jeer nafteena halaaga ku ridna adiga oo sababihii oo dhan la yimid dadka intooda badanina sidaa oo kale ayay u qaldamaan waxaad arki iyaga oo sababta la imaanay oo kii sameeyeyna iloobaya wiilyow kaale aan iminka kow ka bilownay heedu maahan inaan eber ka bilaabayno waayo asbaabtii oo dhan waad la timid asbaabtii oo dhanna waad garanaysaa laakiin waxaad ilowday shay aad u muhiim ah kaas haddii aad doonayso inaad guulaysato waxaa muhiim ah inaad fashil ku dhacdo maxaa yeelay fashilku waa bilowga guusha dhibaataduna waa bilowga raacay wanaagiisa ilaa marka hore aad dhadhamiso taas lidkeeda oo ah halka markii la marayo ayuu wiilkii yaraa odaygii weydiiyey sidee u bilaaba halkeense ka halkiminka anigu sababtii waan garanayaa iyo sida aan sababta u adeeg sida wax loo qorsheeyo waan garanayaa sida loo fuliyo iyo sida loogu baahan yahay inaan milo waan garanayaa in loo baahan yahay inaan noqdo mid furfuran iyo in mid isxilqaama iyo sida aan u daba joogayo fulinta iyo dhammaan sababaha oo dhan maxaa haddaba la iiga baahan yahay inaan sameeyo ninkii xigmad badanaha ayaa wiilkii yaraa fiiriyey isaga oo dhoola cadeynaya oo ku yidhi iminka ayaad i weydiisay su'aasha saxda ah tanina waa talaabada ugu horeysa wadada guusha oo ah abuurka guushuna waa ku xirnaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala intaa haynoo joogto nuucsidan u sabiir saaxiibadan la wadaag muuqaalka mahadsanid hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh